What's going on? It's all right, Joe. It's all right. And the valve for the saline Should be unconscious. What's going on, mate? Shit. It's in a tissue. Irbadda dhimashada gobollada dalka Mareykanka waxaa laga adeegsadaa irbadan 32 gobol oo lagu dilaa dambiilayaasha, waxaanay khaas u tahay dambiyada waaweyn sida basaasida iyo afduubashada diyaaradaha. Laakiin dambiga ugu caansan ee uu sharcigu ku ciqaabo irbadan waa dilka. Waayadii hore waxaa dadka lagu dili jiray in lagu toogto rasaas ama daldalaad, laakiin waqtigan aynu joogno waa la horumariyay qaababka dilka, waxaana ka mid ah irbadan dhimashada. Waxaynu ogaanaynaa siday u shaqeyso iyo sida dadka loogu mudo. Aynu u gudagalno barnaamijka. Wadamo badan ayaa ku ciqaaba dambiilayaasha irbadan dhimashada, waxaana ka mid ah wadamada Mareykanka, Shiinaha, Thailand, Vietnam iyo Moldavia. Waana irbad awood u leh inay joojiso dhaqdhaqaaqa wadnaha si uu qofku u dhinto, waxaanay ku qaadataa daqiiqado duruufo iska caadiya, waana muddo ay ku kala duwan yihiin dadku. Laakiin maxay yihiin maadooyinka lagu mudayo jidhka? Siday ku awoodaan inay soo gabagabeeyaan nolosha qofka? Sida laga soo xigtay warbixino caafimaad oo badan oo ay shaacisay dowladda Mareykanku, irbadan dhimashada waxay ka kooban tahay 3 maado oo kala duwan, kuwaas oo si isugu xigta loogu mudo qofka. Thiopental-sodium waa mid ka mid ah maadooyinka maanka dooriya, waana maadada loo isticmaalo in lagu dooriyo maanka jidhka iyo in lagaga ilaaliyo inuu xanuun dareemo qofku. Waana maado si toos ah saameyn ugu yeelanaysa nidaamka neerfaha iyo xubnaha kala duwan ee jidhka. Waxaa loo adeegsadaa qadar dhan 30 ilaa 50 miligram halkii kiilogaraam ee jidhka ah, badanaana 150 miligram ayaa loo isticmaalaa in lagu dilo qofka weyn. Maadadani waxay ka kaxaysaa miyirka qofka inta u dhaxaysa 2 ilaa 3 daqiiqo. Maadada labaad waa maadada bromide chromium, waana maado murqaha jidhka jilicsa. Maadadani waxay ka caawisaa qofka dilka lagu xukumay inuu ku nasto marka uu daroogada ka qaatay hal dhinac. Dhinaca kalena waxay saameysaa muruqyada mas'uulka ka ah habka geedi u socodka neefsashada, waxaanay ka dhigtaa qaar daciifaya ilaa ay ka joogsadaan. Irbada saddexaad waa maadada chloride sodium oo sababta khalkhal ku yimaada garaaca wadnaha, taas oo ugu dambeyn keenaysa wadno istaag ilaa ay maskaxdu ka dhimanayso. Geedi u socodka neefsashada wadnaha bani'aadamku uu sii wada shaqada ilaa uu cidhiidhi galo. Sidoo kalena maadadan chloride sodium waa maadada ugu fudud ee muruqyada wadnaha looga joojin karo shaqada haddii uu dhaqdhaqaaq yar wadnuhu sameeyo. Waa daliil cad oo ka hor imanaya in dambiiluhu dhintay. Dilka irbadan waa wadada ugu fiican ee lagu dili karo qofka, iyadoo loo eegayn siduu caafimaadkiisu yahay iyo siduu u xajmi weyn yahay. Waxaana markiiba soo dhaweeyay irbadan in loo dilo sidan dambiilayaasha, waxaana irbadan la isticmaalay markii ugu horeysay dhammaadkii sanadkii 1982. wixii waqtigaa ka dambeeyay waxaa qawaaniin ogolaanaya irbadan in la adeegsado soo saaray 30 gobol oo kale, waxaanay qofka dilaysaa waqti gaadhaya 10 daqiiqo ilaa 17 daqiiqo. Waxaana jirta sariir khaas u ah irbadan oo leh 3 suun, laakiin gobolada qaar waxaa lagu dilaa irbadan dambiilayaasha iyadoo la hayo. Kadib qofku markuu dhinto, waxaa meydka lagu aasaa qabuuraha lagu aaso dadka dilka lagu fuliyo. Arrintani markii ay soo shaaca baxday, waxaa ka hor yimid dowlado fara badan, kuwaas oo ku sababeeyay in irbadan marxuumka ku sababayso xanuuno aan loo baahnayn
ama ka fara badan xanuunadii geerida caadiga. Arrintaasna waxay ku riixday dowladaha qaar inay iska diidaan oo ay ku andacoodaan waxaad 3 irbadood ku beddeshaan hal irbad oo ah barbiturat, waana maado loo adeegsado in lagu dilo xayawaanada xanuunsanaya. Inkasta oo irbadaynta ama duritaanka loo tixgeliyo habka ugu bani'aadamnimada badan ee lagu dhameeyo nolosha dambiilayaasha, laakiin wuxuu arrinkani la kulmay dhaleecayn badan. Tusaale ahaan, sanadii 1985 waxaa lagu xukumay nin lagu magacaabo Charles Booker, kaas oo lagu soo eedeeyay inuu geystay fal dil ah, waxaana lagu xukumay irbadan in lagu dilo isla gudaha jeelka Easton sanadii 1990, halkaas oo lagu muday irbadan isagoo jira 50 sano. Taasina waxay keentay dhaleecayn badan oo loo soo jeediyay habkan dilka cusuba. Sidoo kale waxaa jiray dhacdo kale oo ku dhacday Joseph Cannon oo ku xukunaa in la irbadeeyo ama la duro irbadan 23 Abriil 1989 markii lagu eedeeyay fal dil iyo kufsi iskugu jira sanadii 1977. Sanadkii uu dambiga galay wuxuu jiray 17 sano, laakiin wuxuu waqtigiisa ku qaatay isagoo sugaya irbadan dhimashada. Intii aan lagu mudin irbadan, wuxuu yidhi hadalkiisii u dambeeyay ee dardaaranka ahaa. Kadib intii lagu guda jiray fulinta xukunka irbada, waxaa ka soo baxay gacantiisa irbadii. Kadib intii lagu guda jiray fulinta xukunka irbada, waxaa ka soo baxday gacantiisa irbadii, wuxuuna bilaabay qaylo. Waxaanay arkeen kuwii dilkiisa joogay inuu dambiiluhu bilaabay qaylo, waxaana la xidhay daaqadii laga arkayay qolka dilka. Kadib intii lagu guda jiray fulinta xukunka irbada, waxaa soo baxday lagu fulinayo muddo dhan 15 daqiiqo, waxaanay shaqaalihii bilaabeen inay ka shaqeeyaan khalkhalka ku yimi. Wuxuuna fursad u yeeshay Cannon inuu mar labaad dardaarmo. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa lagu fuliyay xukunkii. Sidoo kale waxaynu xusaynaa kiiskii buuqa ka dhaliyay warbaahinta. Qiyaastii muddo laga joogo 1 sano, ninkan oo lagu magacaabo Dewey Ham laguna xukumay irbadan gudaha jeelka Donaldson ee ku yaala gudaha Alabama. Dewey Ham wuxuuna ahaa mid la dhibaataysan cudurka kansarka, sidoo kale wuxuu ahaa mid qabatimay daroogooyinka. Arrintaasina waxay ka dhigtay in xididadiisa qaar aan caadi loo arkin. Waqtigii dilka lagu fulinayay, waxay la dhibaatoodeen dhakhaatiirtii inay irbada geliyaan xididada gacanta, waxaanay dhakhaatiirtu ahaayeen qaar aad u walwalaya. Waqtigaana xukun suguhu wuxuu ahaa mid dareemaya xanuun daran. Dhakhaatiirtuna waxay doonayeen in ay arrintan si dhaqso ah soo gabagabeeyaan. Ugu dambeyntii waa lagu guuleystay in la duro irbadii xukun sugaha. Xukunkan irbada haddii uu qalad yari ka dhaco ma fulayo. Sidoo kale dadka qaarna si xun ayaa ay ugu dhibaatoonayaan. Laakiin daawaday, maxay kula tahay xukunka rasaasta iyo ka irbada keebaa u raaxo badan dambiilayaasha?